ومدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود oo maanta kumanaan shacab kula damaashaadaya qaybo kamid ah magaalada Muqdisho waxaana kamid ahayd xeebta Lido halkaas oo ay ku dabaaldegayeen kumanaan shacab ah oo u badnaa dhalinyaro iyo caruur munaasabada Ciidul Fitriga awgeed goobaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta kula dabaaldegay munaasabada Ciidul Fitriga shacabka reer Muqdisho waxa kamid ahayd xarunta Muqdisho Guest House halkaas oo ay ku sugnaayeen caruur ku dheelayay qalabka caruurta iyo dhalinyaro ay maaweelinayeen fanaaniin da'yar kuwaas oo qaadayay heeso ay kamid yihiin wadani soo jiitay madaxweynaha dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xeebta Lido waxa uu kumanaankii qof ee ku sugnaa ka salaamay meel sare halka maqaayada Bar View oo ku taala isla xeebta Lido uu kula qadeeyay muwaadiniin ku sugnaa waxa uu u rajeeyay guul iyo barwaaqo iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen qadaasi wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye taliyaasha ciidamada booliiska xoogga iyo asluub mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo sii wata damaashaadkii shacabka Soomaaliyeed uu kula qaybsanayay munaasabada ciida ayaa gaaray xarunta Muqdisho Guest House halkaas oo ay ku damaashaadayeen waalidiin iyo caruur mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaana caruurtii ku sugnaa xaruntaasi mid u gacan qaaday waxa ayna indhahay ku qabanayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhabta saaraya inta badan caruurtii ku damaashaadaya xaruntaasi dhammaan dadkii maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu kala qayb galay damaashaadka ciida ayaa laga dheehan karay wajiyadooda farxad ku aadan in ay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shacabkiisa uu la qaato dabaaldega munaasabada ciida kuwaas oo badnaa qurba joog madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo boqolaal dadweyne ah kula hadlayay xarunta Muqdisho Guest House ayaa ugu hambaliyay munaasabada ciida isagoo kula dardaarmay inay iskacan siiyaan isla markaana ay caawiyaan walaalahooda aan ka qayb qaadan ciida sabab dhaqaale awgood maalinta muhiimka oo la ciidaayo waaye ciida caruurta laga farxiyo kuwa caruurta oo aan waalidkood waxaysan waxa la siiyo caruurtiina bas ay farxineen kuwa xariyaha barakacayaasha ku jira iyo kuwa aan waxaysanin hal kaalmeeyo waxa la siiyo ayaguna ha farxaan saas ma ahano inay farxaan Soomaa hal laga farxiyo hal kaalmeeyo hadii la yiraahdo ciid wanaagsan Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha midowdo cadawga Soomaaliya ha jabo cadawga midnimada ha jabo diinta islaamka iyo dadka iyo dalka kor Allah ka dhigo noolaada adikana noolaada ciid wanaagsan damaashaadkan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta la qaatay shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa astaan muujinaysa amniga ka jira caasimadda Soomaaliya Muqdisho iyo sida ay kaga go'an tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in shacabkiisa uu siiyo qayb kamid ah waqtigiisa gaar ahaan maalmaha muhiimka sida ciida oo kale Nasr Basheer Cali TV-ga qaranka Soomaaliyeed Muqdisho